أصحابي أسكرتي معلنك ويدونين ويساق بتين بقركي وكينين مركا بقرك محوك سمي دونا معلنك مديل دونا معفين دونا محري دونا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنا أخيارت جنال كي كحريرسن يكو جدك كسجر يكو مستقبل كي إيمان دونا لما وين سلام يا رمضان كريم waxaan ku jirnaa 10 bari ee ugu dambeysay Ramadaanka ilaahay waxaan ka baryaynaa Ramadaanka inuu ilaahay nooga dhigo mid bada iyo dhibaatada alla nooga qaado magaalooyinka iyo adduunyada dhan waxa hareeyay cudur iyo dhibaato badan ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay oo adaaweyna waaxide cudurka iyo balaayada Allah naga qaad Ramadaanka qeyrkiisa Allah na siiyo Allah naga dhigo kuwii ka faa'iideystay رمضان كدمبنا نبدي عفاد الله نوجرسيو إن شاء الله أصحابي جنالك بريها وكم غنين ولا سك مشغولة الدنيا نكون مشغولين وحن هذا كدب إن شاء الله بلقادية إن مالي والبشاكلين سوقيو وحيقول صاد عدي شاكوين بدن أو حكمة له وعن كذا فائدة سكرنا إن شاء الله يبقى تبغى واحد يبقى نوكينين واحد يبقى iyo dambi aan ka dheeheleynin laakiin faa'iido noo ah adduunyadeena iyo aakhiradeena marka waxaan jeclaystay inaan maanta idinkaga sheekeeyo sheeko xigmad badan leh xigmad badan ku dhisan oo aan hadda anagoo mar hore aan akhristay oo buug ka akhriyay sheekadaasi waxay ku saabsan tahay marba nin boqora jiray ninka boqorka wuxuu ahaa boqor aad u caadila wanaagsan dadkiisa ay aad u jecel yihiin boqorkaasi wuxuu lahaa ilmo dhan wuxuu kala hal wiilka uu dhalay wiil yar uu ahaa boqorku wuxuu maalin iyo habeen ka fikiri jiray wiilkiisa markuu xukunka qabto sida uu dadka ula dhaqmi doono sidoo noqon doono ma sidiisu kale noqon doonaa ma mid wuxuu noqon doonaa faasido dadkii fasahaadiye oo dhibaateeya aad uu boqorku u walwali jiray maalintii dambe go'aan uu gaaray boqorkii wuxuu yiri wiilkan waa inaan wax baraa si uu u noqdo boqor caadila sideedoo kale dadkana ayna u dhihin birinta markaan dhinto amba xukunka uu la wareego oo aniga aan gaboobo sida loo dhihin wiilkii aabihiisa ka fiicnaa amba aabihiisa kan dhaamay kanna muxuu ahaa sida loo dhihin wiilkii wuxuu go'aansaday in uu diro nin aad u xigmad badan aqoon badan leh way aragnimo fiican leh inuu macallin u noqdo wiilkiisa uu wax baro boqorkii wuxuu u diray wiilkiisii meel ka fog meeshii uu deganaa wadanka uu ka tilinayay magaalo kamid uu diray wiilkii macallin uu tagay ninkii loo diray oo macallinka u noqon lahaa markuu u tagay waa soo dhaweeyay aad iyo aad loo soo dhaweeyay waxa la yiri soo dhawaaw waxbarasho loo bilaabay aad ayaa wax loo baray markii uu muddo wiilkii meesha joogay uu wax baranayay maalintii dambe uu waxbarashadiisii gabagaba ahayd oo maalintii ugu dambeysay uu waxbarashadu u dhamaatay uu graduate ahaa uu qalin jibiyay waxa uu yeeray ninkii macallinka ahaa wuxuu yiri ikaalay uu yimid markuu u imaaday wiilkii markuu soo soo galay iska qaraacay wuxuu qaatay garbaash ul iqabo uu qaraacay wiilkii uu qaraacay markii inta cabaara uu qaraacay kaasuu haddana ku yiri hadal aad u dhaawacay wiilkii yaraa wuxuu yiri wariyaa wajigayga ka tag ma rabo inaan ku arko mar dambe iga hor leexo wajigayga ka leexo markii wiilkii yaraa biyaabay wuu amakaagay wax uu ku fasiro uu garan waayo waxa lagu sameeyay wax uu ku fasiro uu garan waayo wuu iska tagay markuu baxay uu magaaladiisa ku laabtay iyo gurigoodii aabihii uma sheegin wuu iska aamusay qalbigiisu ku xariistay muddo markii la joogay boqorkii wuu gaboobay waa duqoobay boqorkii wuu dhintay boqorkii markuu dhintay waxaa xilkii xukunkii iyo kursigii aabihii la wareegay wiilkii yaraa
markuu xukunka la wareegay wixii ugu horeeyay uu qabto uu fuliyo waxay noqotay inuu askartiisa isku waco uu yiraaho waxaan rabaa inaad raadisiin ninka hebel iyo hebel la yiraaho waa macalinkiisa marka taa waxaa ka dareemaysaa inta uu wiilka joogay inuu qalbigiisa ku hayay dhibaatadii uu ninkaas u geystay ma ilaawin markuu xukunka gacantiisa galay waxa ugu horeeyay uu fuliyo waxay noqotay inuu ninkii u diro ciidankiisii uu yiraaho ii keena ninka hebel la yiraaho marka ciidankii markii way baxeen macalinka way raadiyeen ugu dambeyntii waa soo heleen boqorkii loo keenay macalinkii wuxuu noqon doonaa xaalkiis mala dili doonaa mala xiri doonaa mala cafin doonaa bal xaaladiisa beriyan idinkaga sheekeynaa insha allah aan soo socono waxaan idin leeyahay ugu dambeystii ramadaan mubaarak waa asxaabey waa inoo birito insha allah khayr idin rajaa